أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. habeen wanaagsan haddana waxaynu furanaynaa eventkeena magacaygu waa ubax cabdullaahi oo ku magac dheer ubax iigan anigoo ku hadlayo magaca guddida qabanqaabinta ee shirka aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh ee ka soo jeeda gobolka Jubbooyinka iyo Gado sida wanaagsan ee uga soo qayb gasheen munaasabadan qaaliga ah ujeedada shirkani waxa weeye in gabdhaha reer Jubbaland iyo Gado ee ku nool magaalada Sandigeego ee gobolka California ay taageero la garab taagan yihiin maamulka loo dhisayo saddexda gobol ee dariska ah ee kala ah Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Gado. haddaan nahay gabdhaha ka soo jeeda Jubaland State waxaan hambalyo iyo goobaadin u diraynaa ciidamada soo jeestayaasha ah ee naftooda u huray inay difaacaan deegaankooda hooyo kana saaraan cadawga ciidamada commandoska ah ee Jubaland State waxaan idin leenahay waan idin garab taaganahay halganka hana ka harina cadawga iyo cid walba oo damacda in damac ka galo inay gobolka Jubaland maamulkan laga samaynayo Jubbooyinka iyo Gado maaha mid ka soo horjeeda qarnimada Soomaaliyeed wuxuu hoos imaanayaa dawladda dhexe ee Soomaaliya sida gobolada kale ee Soomaaliyeed ay iyagu u qaateen inay ismaamulaan sida ay u qeexda Soomaaliyeed ee lagu soo doortay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu qeexayaa laba gobol iyo wixii ka badan inay gobolkooda ay maamulaan
munaasabadani waxay la mid tahay munaasabadihii hore ee madaxweynaha loo sameynayay waxay kaga duwan tahay waxa weeye madaxweynaha aad ayaan ugu faraxsanay markuu madaxweynaha ay qaaday aad ayaan runtii ugu faraxnay markaan madaxweyne helnay because waxaan ogaanay inaan qaxootinimadii ka baxayna ayaan rajana gashay inay carruurtayda qaxootinimo ka baxaysaa rajana gashay laakiin arrin aad u qariban baa meesha ka timid oo ah in jubooyinka iyo gado la yiraahdo annaga idin talinayna goboladii kalena ayagu ha isku taliyaan waxa weeye nin meeshiisa uguma talin karo Jubbaland iyo gado waxa u talinay dadkii u dhashay ee ku noolaa meesha marka waxa weeye waxa fiican madaxweynuhu waxyaalaha uu ku hadlay runtii inuu ka fiirsado maanta xamar buu joogaa xamarna dhibaatooyin badan baa ka jira marka waxa inta jubooyinku madaxweynuhu ku mashquulsan yahay waxa uu fiican inuu ku mashquulo xamar oo uu problemkeeda xalliyo marka kulli ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan Soomaali midowdo madaxweynahana waxaan u dooranay inuu Soomaali mideeyo maanan u dooranay inuu Soomaali divide gareeyo marka sida uu socdana waxay u agtahay inuu ninkan yahay nin Soomaali divide gareynayo oo gobolana le gobolo isdabara gobolana uu leeyahay waa lidin talinaya nin uma talin karo nin walba isaga magaaladiisa iskala u tashanaya marka insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa madaxweynaha inuu noqdo kii Soomaaliya mideeya kii isku kacay keena waxay khaladaadku uu sameeyay runtii intuu ka fiirsado inuu sameeyo cadaalad uu sameeyo arintaas ku soo gabagabaynayaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Faadimo Ibrahim Ciidi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سلامتنا بلا ماشي سويمت يا قبل ماشي سويمت عاد نود وما تنتين كساقيب قال كعد كساقيب قشان مناسبة اللغو معموسي اللغو سود وينيو معمول سمنت قبل هذا جوبا لاند ستيت waxaan aad iyo aad u garab taaganahay oo ugu hambalyeynaa Jubbaland State inay dhisato maamul ayaga u madax bannaan sababtoo ah waxay gaadheen heer aad u ba'an dagaalaha hareeyay colaadaha hareeyay muddadii 22 sano ee dawlad la'aantu jirtay iyagu dhibaato gooni ayay qabeen marka aad ayaan ugu faraxsanahay inay aayadooda ka tashadaan oo ay sameystaan dawlad ay u madax bannaan yihiin dawladda Soomaalida aad iyo Soomaaliya dimuqraadiga aad iyo aad ayaan u soo dhaweynaynaa kama xumin madaxweynaha kama xumin aad baa ugu faraxsanahay markii la dooranayna maba aan seexanin habeenkaas sababtoo ah waxaan daashaday colaado dadkanaga uu baaba'ay qurbahan ku ba'nay meel walbaan ku dhimanay badahan ku la'anay marka waxaan aad iyo aad ugu baahnayn oon ugu oomanayn dawladnimo marka maadaama la sameeyay oo aan filayo badan ee Soomaalidu isku maamuli karto inay dimuqraadi tahay because waxaan nahay dad aad u qabyaalad jecel marka haddii qof walba gobolkiisa loo daayo waxaan filayaa Soomaalidu inay isu imaan doonto israaci doonto marka waxaan leeyahay madaxweynaha waanu jecelnahay waanu soo dhaweynay calanaan u ululnay wax walba u sameeyay oo ku faraxsanaan rajo weyn ayaa nagu jirtay waxaan ka filaynaa inuu sharciga u hoggaansamo iyo dimuqraadiyadda waxaanu diidanahay oo ka soo horjeednaa in ay dhacdo wixii awal dhacay aan hore u soo marnay ma doonayno rag dambe oo isku dhinta waxa dhimanaya waa wiilashanadii
waxa dhimanaya waa walaalahano waxa dhimanaya waa ragganagii rag dambe oo Soomaaliya inuu isku dhintana ma doonayno marka madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa mar labaad inuu sharciga u hoggaansamo oo uuna kala jeclaysanin gobolada oo si cadaalad ah u dhaqo gobol walba mana ka yeelayno in gobolna uu dhaho soo samayso sida Hiiraan Baydhabo soo samaysta galmudug uu dhaho soo samaysta maamulkiina Jubbaland iyo gedana ana u sameynay taas marna ma aqbalayna mana ka yeelayno sababtoo ah waa cadaalad darrona wixii hore noo soo daashaday marna raadkan daraad soo marnay inaan dib ugu noqono waxaan doonaynaa inuu Soomaalida isu keeno waxaan doonaynaa inuu midnimada ilaaliyo waxaan doonaynaa inuu sharciga u hoggaansamo waxaan doonaynaa inuu noqdo kulmiye ma doonayno inuu noqdo kala geeye waxaan leeyahay Soomaalida Jubbooyinka iyo Gedo waxaan leeyahay waa inaad si wadajir ah oo kalsooni ah oo saad hadda isugu raacdeen inaad isugu raacdaan ood ammaankan sugtaan dadka deegaanka degana aad tixgelisaan taasaan idinka codsanayaa idinkana inuuna tafaraaraq damba dhicin inaan dagaalo damba dhicin inaan tafaraaraq dhicin oo dambe ayaan rajaynayaa gobol walba iyo intii is-afgaranaysaba inay heshiiyaan sababtoo ah gobolada waa la kala leeyahay dad badan baa dicaayado ku soo qora meel walba oo dhaho dad dhulka Ilaahay baa iskale waa la ogyahay dhulka inuu Ilaahay leeyahay laakiin Ilaahay qof walba deegaan gooniyuu siiyey oo ku dhashay xitaa reer baadiyaha soodin baa la kala lahaa waxaa la kala lahaa xoolo waxay ka leeyihiin xitaa sumad oo la leeyahay sumadda waa sumadii reer hebel deegaankuna waa sidaas oo kale waxaa la dhihi waa reer waqooyi waa reer koonfur waa reer galbeed maxaa lagu ogaaday because nin walba deegaankiisaa la yaqaanaa Soomaali way istaqaanaa way yaqaanaa nin walba meeshuu dego wuu ogyahay waxaan u sheegayaa dad Soomaalida 22 sano ku mamay xoolaha dalka inay cunaan dadka inay cunaan waxaan u sheegaynaa inay dhammaatay waxaas aan midnimo u rajaynayaa Soomaaliya inay degtaan u rajaynayaa in nin walba gobolkiisa uu maamushaa u rajaynayaa inay mid noqotaan u rajaynayaa guul iyo midnimo haddana mikrofoonka waxaan ku soo dhaweynaynaa Khadiija Sheekh Maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa gabdhaha meesha isugu yimid Jubbooyinka ee ka socda saddexda gobol ee Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe iyo Gedo waxaa kale oo aan salaan u gudbinayaa gabdhihii soo qaban qaabiyey xafladan oo geliyay xoogooda caawa noo suura geliyay inaan meesha isugu nimaadno inaan taageerno Jubbaland gabdhihii suura geliyay oo xoogooda geliyay oo ku soo dadaalayna aad ayaan uga mahadcelinaynaa waxaa kale oo aan mahad u celinaynaa ciidanka Jubbooyinka ee dhibka u soo maray ee u halgamay ee rafaadka u soo maray ee dhiigooda u daadiyay inay gobolkooda ka xoreeyaan cadawga ragaadiyay 22 sano ciidankaasi oo ah Raas Kiamboni ciidanka dawladda iyo ciidanka Kenya ee aan dariska iyo walaalaha nahay oo gacanta nagu siiyay oo noo suura geliyay inaan cadawgeena ka saarno gobolladii aanu xaq u lahayn oo deegaankanada ah inaan ka saarno dadkii
usoo tiriya taxabeelay salaan baan u diraynaa waxaan u sheegaynaa haddii aan nahay gabdhaha Jubbaland inaan taageersannahay oo caawa xafladan isugu nimid inaan taageerno oo aan gacan siino oo aan ku faraxsannahay wixii ay qabteen ay ku mahadsan yihiin wixii dhimana inay dhameystiraan oo ay cadawga intaa ka qorayaan waxa kale oo aan taageersannahay dawladda Soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan idin sheegaynaa annagu ma niin dawladid dawladana kama soo horjeedno waxaan nahay dad dawladooda taageersan oo ku faraxsan oo aan rabno inay dawladda dhisnaato oo dadka wax u qabato si cadaalad wax ugu qabato dadka reer Jubbaland waa dad nabadda jecel waa dad dawlimo jecel waa dad daris wanaaga jecel waa dad nabadgelyada iyo deganaanta jecel oo waligoodba dawladnimada jeclaa weeye dadka reer Jubbaland reer Jubbaland ma dagaalamin waxaa dagaalka u keenay dad dibadda laga soo abaabulay oo weerar ku soo qaaday oo dadkii xaqa u lahaa wadanka ka saaray oo u diiday nabadda oo u horseeday burbur iyo dhibaato iyo rafaad iyo qax u horseeday ayaa dibadda uga yimid iyagoo isma dagaalin dawladda Soomaaliyeed waxaan doonaynaa inay nagu taageerto iyadoo ilaalinaysa sharciga loo dejiyay ee dastuuriga ah ee Soomaaliya ay degsatay ee loogu talagalay laba gobol iyo wixii ka badan inay israacaan sharciga dastuuriga iyadoo raacaysa in ay gacan nagu siiso oo ay garab nagu siiso oo rabitaanka dadweynaha deegaanka iskale oo go'aansaday inay maamul samaystaan in ay gacan nagu siiyaan maamulka maxaa looga baahan yahay maamulka la dhisayo ee dibadda loo aasayo waxaa looga baahan yahay in uu sameeyo cadaalad wax aan cadaalad lagu dhisin ma socdo ma hirgalo ma raago waa in dadka deegaanka u dhashay aanan laga tagin qofkii tuulo kule meeshaas waa inay dadkaasi oo dhan iyadoo loo midaysan yahay oo loo dhan yahay waa in la dhisaa dawlad goboleed loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay iyadoo aan cidna lagu xaqiraynin cidna aan wixiisa loo diidaynin cid kale oo boob ku timid oo xoog ku timidna runta in loo sheego sidaasaa marka dawladda ay ku dhismi kartaa oo ay cagaheeda isku taagi kartaa oo ay ku noqon kartaa dawlad waa marka cadaaladda la fiiriyo oo la fiiriyo in cadaalad wax lagu maamulo wixii cadaalad lagu maamuli waayo cadaalad darra cartay ka soo bilaabatay 4.5 bali bani aadam barayala xagee lagu arkay bani aadam nus ah 4.5 waa xaq darro ma rabno anaga cadaalad darra ma rabno qof alla qofkii Jubbaland ka tirsan waa inuu xaqiisa helaa waa in loo wada dhanaadaa waa in aanan qofna aanan lagu dirqinin meesha uu leeyahay in la yiraahdo mariyid ku aan lahayn in daaqada laga soo galiyo ma ogolin maxaa annaga looga baahan yahay annaga waxaan looga baahan yahay taageero waxaan looga baahan yahay gacan inaan siino ummadda Soomaaliyeed dad baa gudaha ku barakacay dad baa dibadda ku soo barakacay dadka waa in dalkooda dib loogu celiyo waa inaan dalka dhisnaa maanta waa maalintii aan caruurteena iskuulka u diri lahayn waa maalintaan isbitaalladeena dhisan lahayn waa maalintaan hooyooyinkeena iyo caruurteena daryeeli lahayn waa maalintaan dhexda xiran lahayn waa maalintaan dhuhdhuhle iyo been dhegta ka furaysan lahayn annagu dalka noo baahan yahay idinku idin baahan yahay annagu noo baahan yahay waa inaan dalkeena u qabno waa in warshadihii la burburiyay oo la furfurtay oo maraakiibta la saaray aan dib u dhisnaa
مريري مجانبو وأين ورشد مشروع بريسك يا مجانبو سوعدنا وأين ورشد سكرت ومريري سوعدنا وأين الإسكولات نسنا وأين ندرك نبكعنا وأين سوق ماسك كلي يردنا بضاعة كنت هذا نيسا محا تهريبك وإن شقوا أبورنا وإن نكأو قلانين إن مرضى بدلكنا لو عيار وبنانك لقى سوابا بلو أو دقال يا حق درا لو تنتو وإن لقى قلانين هذا يا أم هالسنتين سومالي إلهي حق هاتسو عقلي هذا فور لا توسيو تي كولنت الله كدغو تي وخ قبسط الله كدغو تي انفع الله كدغو adduunkan hay'adaha ordaya iyo maraakiibta ordaya iyo dhismayaasha ordaya laguma keenin ciyaar midnimo lagu keenay is afgarad baa lagu keenay wadajir baa lagu keenay is xaq dhowr baa lagu keenay la iskuma tuman qofna qof lama duusirin qofna qof xaqiisa lama dhicin waa isku tumanay dhiig baan daadinay waa iscunay dawladda saas kuma noqonayno abadan waa inaan annaga isku tashanaa way banaanka inaan wax laga sugin dalka inta uu baahan yahay intiina meesha joogto u baahan yahay anaga dalka waa inaan wax ka qabanaa aad ayaa u mahadsantihiin intaas ay egtahay Soomaaliha Israacido iimaanka Allah ku sugo dalkeeda Allah tuso dadkeeda Allah tuso diinteeda Allah tuso umarashada loo baahan yahay wadada in la maro loo baahan yahay Allah tuso marka waxaad yeelaysaan walaalayaal hadii la yahay rajubo suxulaysiye jirin deegaanka waa ogtihiin sida loo degan yahay waa ogtihiin umada idin la degan waa ogtihiin idinkoo Soomaali nadiif ah oo waxba riixay oo Soomaali nacayni wadankeena aan dhisan دولة حن بعدين دولة وأيدنا وأنا أيدتنا هاي هو حق نقوله قامية أو حق إلهي تصنع الله كريم hadda waxaan ku soo dhaweynaa mikrofoonka xaalay doodi dadka sharafta leh isugu yimi waxaan diisoo gudbinayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dowlad goboleedka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo arrintu way fiican tahay Soomaalinimo la isugu yimaado arrintu waa Soomaali weyn waxaan jeclaan jirnay oo maxay tahay xornimada ugu dadaali jirnay in ilaahay xornimo ka rashantii Soomaaliyeed wada socoto ilaahay isku keeno walina suurtagal ma noqon ilaahayna waa laga rajaynayaa laakiin haddii taas Soomaali weyn ay maahoro ku burburtay oo dadkii Soomaaliyeed haysan waayeen dawladoodii qiimaha badnayd iyo heerarkii aynu gaadhnay u malayn maayo qof halkan ka hadlay way sheegan way taataafteen laakiin Soomaaliya heerkii ay gaadhay ee ay ka soo noqotay ruux soo qaaday I don't know why loo sayeen xornimadii waa soo qaaday laakiin heerkeenu gaadhay dawladnimo ma aanay ka dhicin waxaynu gaadhnay heer aad u sareeya oo dawladaha ina leeg dawlad gaadhay ayna jirin dawladaha Afrika dawladaha Afrikaanku madaxweynaheena waxay u yaqaaneen oo xaqiiqo ah halyeeyga Afrika laakiin waynu calfan weynay wadankeena baynu dib u burburinay wadankeena baynu cunay ilaahay markii ilaahay isku soo keen celiyo qabiilkii la aasay waxaan u malaynayaa 73 baa la aasay qabiilka oo god loo qoday dib baynu u soo fagnay isagoo kafan wata baynu iskafanti intaynu ka siinayno dib u soo celinay wuuna ku burburay maadaama wadankii burburay oo gobollo loo kala degay ilaahay waxaan ka rajaynayaa nin walbaba gobolka uu degan yahay gobollada ay degan yihiin
inuu iimaansado oo ilaahay iimaanka ku sugo Soomaali weyn waxaan maraynayaa qolo haysan kartaa ma jirto qolo ka adkaan kartaa gaar ma jirto nin walba degmadii iyo gobolkii ilaahay ku abuuray uu degan yahay nin walba ilaahay ha u iman nin dawladu noqon karaa ma jirto israacaynu ku wanaagsanayn laakiin haddii la waayo waxaan rajaynaynaa dawladdan inuu hadda la joognaaba waxay leedahay dawlad magaranta federaal nin walbana gobolkii statekiisu waa u gaayeen statedeena inagana kuweena ilaahay inoo calfo dadka kale Soomaaliyeedna ku wada iimaanka ilaahay ugu sugo oo Ingiriis wadankeena wadan Afrikaan oo diyaarad ula dagaalamo wadankeena u horeeyay oo dadkeena iyo maatadeena iyo wixii lagu burburiyay baynu ka soo kabanay ilaahay baa wixii la soo maray dawladina siiyay dawladii waynu calfan weynay iminkana waxaan idin leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ee halkan joogo meel kasta joogtaba ilmaadayaal gabdhayowga Soomaaliyeed kale u fidiya ma garanaysaa dhambaalo u fidiya gogol u dhiga u yeedha gabdhaha dagaalka abaabulaya gabar baan maqlay maalmood la dhaka hadlaysa waxay leedahay wallahi waxaan ka yaabanahay reer Soomaaliyeed intay magacowday reer hebel baa la baryayaa nabad lagu baryayaa miyay tiri mise nabad baryayaa banaad la yaabana waxaan leeyahay taana walaal ilaahay xaqaha ku fahansiiyo inta kale dagaalka horena waa abaabsheedana abaabuleysana ilaahay xaqaha fahansiiyo dariiqa toosana xaqa Allah ina wada fahansiiyo nin walbana gobolkiisa ilaahay ha u calfo gabdhaha gogol u dhiga Soomaaliyeed kuwa dalkii jooga waa ku rafaadsan yihiin haday moodayaan kuwa dibadaha tagay gabdhaha ale dibadaha lagu rafaadsan yahay wallahi gabdhii wadankii jooga waa inaga rafaad badan oo curadadoodii waayay oo ragoodii magaranaysa ilaa wiil lagu bateen oo dhaawac u bateen oo maxay tahay habeen maalin dhiig hortaagan yahay intan oo kale iyo inka badan oo meel joogta waxa laga yaabaa in wax la dhex dhigo oo intaas 20 ruux 3 ruux meel wada dhimato waxa dhiiga galayaan waa rag Soomaaliyeed aad baan uga xumahay rag Soomaaliyeed oo diinta Islaamka ku dhashay inay maalin walba ma garanaysaa dhiig ku dhintaan hadda waxaan mikrofoon ku soo dhaweynayaa Rodado. First of all, I would like to thank all the people who helped organize this support meeting tonight. Second, on behalf of all Jubalanders, we would like to thank the Somali armies, including the Ras Kamboni, the Somali National Army, and who liberated Kismaya from the Al-Shabaab stronghold. We would also like to thank our friends from Kenya who assisted in this liberalization process. As all Somalis know, the people of Jubaland are a peace-loving people. They have always supported their government, even sending candidates from the region to the current Somali parliament elections. Despite the peace-loving nature of Jubalanders, there are people from other regions who bring tribal animosity to the Jubaland. Jubaland is a place my parents and I call home, and a place my grandfather still resides. As Jubalanders, we support the creation of the Jubaland state and oppose those who are against the creation of our state. Thank you for your time. ما حاول يسوي إن الله درا مدحونا جمهورية الديمقراطية الصومالية وح ليدا حسوسن قلبه حي وحول بروال الصومالة مركو كان جيرنا إنه حسوسه سوء حسوسته هيران إنه حسوس قولة جبويك أو لها يقدر ويرادده وقال حقه مركب العينة فرح سنة وانسود وين رئيس الوزراء سيدو كلا وزيرك قدومية برلمانك مركب حاملين هاي حق وحي يقول دورتي كصباح صومالي وحي يقول دورتي إن المدحين أوتها سيدا لو دورتي وأنا الحق وذن أسرتها والقول قلبه أقرأ حقيسة أنا الله كون بيري حوش دورك لقاسار وطن كان الله إسرائيل صومالي الله سوده قفل بالقبل بالدنيا قفل بالقصة مرك حق الله بسنا صومالي وما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
aan bogaadinayna ama hambalyo u dirayna taageeridda Jubbaland iyo Gado. Marka Soomaali ismana gumaysan karto, ismana qasbi karto. wixii ay ku soo baabacnay ayuu 20 sano ay meel ku degweynayeen waxa weeyaan qolo walba federaalka la sheegay uu la ku midaysan madaxweynaha aad baan u taageersanayn aad baan ugu soo jeednay ilaa hadda lagu soo jeednaa dad u baahan baanu nahay dowladnimo dad u baahan baanu nahay dalkoodii inuu nabad noqdo calankan buluugga iyo dalkan waa loo soo dhintay dad baa u soo dhintay dumar baa u soo dhintay aad baanu u jecel lahay inuu sidiisii iyo si ka badan noqdo aadkii afrika loo yaqaanay madaxweynihii ugu dambeeyey dalka dalkii uu lahaa iyo dowladdii uu lahaa iyo ciidamadii uu lahaa iyo siduu u dhismay waa la wada ogaa intii laga subxaanalaystay la yidhi dowladaha kale uu qabsanaya waa la ogaa sidii iyo si ka wacan sidii hore iyo si ka wacan inay noqoto maxamed siyaad barre sidii iyo si ka sii daran oo ka sii badan oo sii baxay oo tiknoolajiyada iyo wax waliba kor u kacday in laga helaa la rabaa madaxweynaha maanta la doortay aad baana baahi weyn loogu qabaa waxa weeyaan dadkii way baabeen waa in bad ku baabaaday iyo in xabad ku baabaaday iyo in jeelal ku jirta adduunka dacaladiisa oo dhan marka waxa weeyaan iyadoo tii la leeyahay laga baxo laguna taageeray in maanta haddana la isku bilaabo iyadoo hadda la bilaabayba dowladdiiba aad iyo aad baan uga xunnahay Jubbalandna waa dal la yaqaano iyo Gado oo waxa weeye dadka degi jiray iyo dadkii ku noolaa iyo reer baadiyahoodii iyo dadkii ka soo geli jiray iyo sida ay inta la yaqaano marka qola loo talin kara ma joogto meeshaas korona looguma talin dalay leeyihiin weligood looma talin haddana looma talin karo oo ilaahay garansiiyo kii dalka iyo dadkaba anfacana ilaahay ka dhigo kii dalka isku mid ka dhiga alla ka dhigo kii waxa weeyaan si cadaalada dalka ku wadana alla ka dhigo intaa ka bacdi waxa weeyaan aad iyo aad baan u taageeraynaa Jubbaland iyo Gado aad iyo aad baan u taageeraynaa madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka kulli aad baan u taageeraynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii wada tashada ee dadka isugu mid noqda ee waxa weeyaan aan kala leexleexan maanta gumaysi kale iyo dhibaato kale iyo badaheennii waad aragteen nuxurkoodii iyo wixii ku jira in 24 saac la guranayo oo dhibaatada in haysato waad aragtaan taraashkii iyo wixii wadamada kale laga qaadaa lagu daadinaya dadkeennii waad aragteen inta maynaan arki jirin dadkeenna kansar iyo AIDS iyo balaayo waxay inoogu horreeyay intay qaxday yaa inoogu horreeyay waxaa inoo keenay dhibaatada wadamada kale geeyay yaa inoo keenay marka waxa weeyaan nuxurkeeni iyo badaheeni baa saa loo guranayaa oo burcani ku sheegaya markii la yidhi naga daayana marka waxaasoo dhan dowlad la-aan weeyaane raadaaraynu lahayn dalkeennana lama soo geli jirin ilaahay waxaanu ka baryaynaa dalkeenu inuu sidiisii hore ku noqdo oo dowlad isgaarsiisan oo dalkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda ilaahay ka dhigo in kala qoloqolaynta iyo qabyaaladana ilaahay naga tirtiro halkan waxaan ugu soo mahad celinayaa dadka Jubbaland iyo Gado ka yimid oo aan meeshan isugu nimid waxaan ujeedadan meeshan isugu nimidna waxay ahayd inaan message ku dibino oo laga tirsanayo madaxweynaha oo ku saabsanaa Jubbaland iyo Gado waxa ka dhigay tuka cambaar leh oo meel qof walbana uu godkiisii haysto tuuladiisii ayadana loo diidan yahay inay xornimadeeda qaadato oo iyada isku kunto marka taas aan unfortunate anaguna madaxweynaha waanu jeclaan waanu rabnaa laakiin waxa weeyaan waxyaalaha uu sameeyay kama aan helayno apologize inuu naga siiyaan runtii u baahanaa
marka waxa weeye insha Allah waxaan ilaahay ka baryaynaa khayr Jubbaland iyo gadana gabdhaheeda anoo ka hadlaya waxaan u rajaynayaa khayr badan insha Allah mid walba wuxuu samaystay iyo tuulo walba gobonimada ay gaadhay insha Allah anaguna waan gaaraynaa oo ragaygu waa noo dagaalameen waa noo soo halgameen kuwaana waan u mahad celinaynaa ilaahay khayrna ha ka siiyo dhammaan gabdhaha yimid aad baad u mahadsantihiin xafladana soo gabagabaynay